soo dhaweynaa marka hore warbaahinta si aad la socoto Somaliland hadda arrintii baarlamaanka ka bilaabantay khilaafkii xalay toole waxa la wareejinayay kartoonkii uu ku jiro labadii xeer oo waxa weeye ay isku tuurtuuraysaan shacabkii way idin sugayaan si weyn bay ugu dhagtaagayaan khilaafkii inaad qayb ka noqotaan idinku murantaan oo khilaaf idin dhex maro saa wada aragtaan laba golo murmay oo isku golaha dana ahi ma qurux badna muranku meesha kuma jiro xeerkana waxay iga dhigaysaanna waa warqadan markii horeba garaacanae hadday qoyday biyaha mid kalaanu daabacan doona wax walay wado oo aan ahayn in golahaasaa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu kana saamaynin oo kana muran dhex gelin inay iyagu dhammaystaan oo weliba si wanaagsan oo heshiisa oo odaygooduna ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan oo heshiiyaan bay qurux badan tahay inaanu annana gallo hadda dalkii oo dhan gola xeerkaasu waa gaadhsiiseenu dadkiina welwel baa gaadhgelisay war meesha welwel ma jiro dadka welwelkay ka daaye welwel ma jiro golayaal horena waa murmi jireen haddana waa murmaynaa berrina waan murmi doonaa waana laga heshiinayaa macno male wax weyn oo saa u sii ridan laakiin adigu maxaad xeerka u dhex geyn weyday golaha si looga doodo waxaan u geyn waaye hadduu kaa kaga cabaadiyey oo kaga qaylisiiyey oo iyagii silayaan mid laysku khilaafsan yahay 46 maa noo soo qoray waaridaa gudoomiye laantayda dhamay 46 baa warqada noo soo gudbiyey oo ma soo marin broseskii raallina kama nihin dee horta intaan aniga soo qorin waxay ahayd maadday majority iyagu sacaan dee marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaarumay ha kala hadheen calalaqal mudane gudoomiye su-aasha kuweydiinaya waxa weeye maxaa sababay inaad xeer ka celiso miyayna waka inaad la safatay xildhibaanadii maxaafidka iyo sidoo kale xisbi xaakimka talada haya kulmiye yaa maxaafidee jiray aniga maxaafid iyo mucaarid iima kala golahan guurtidu inuu arrimaha galana bama maxaa muraad hadday ragisayaan dee kala ladqabeeyo kala dhex laakiin gudoomiye marka anigu waxaan u ceesaga duway waxa weeye war suuqaa la geshay oo golahii baa la dhex galay oo waa reereyn baa ka muuqata golahan inuu khilaafkaa ku milmo diyaarumay laba golo oo siman labada gole way siman yihiin sidee labada gole iskugu dacwoon karaan miyaanay labada gole sinayn miyaanay ahayn shirguddoonkiiyo nidaam lasoo maro marka hore shirgudoonkii in labada gole ee siman ay isu dacwoodaan oo xildhibaana ay soo maraan iyagoon shirguddoonkoodii la soconin labada gole way siman yihiin sidaad adigu dacwaddaa u aqbashay wahaadhe haddii gole murmayaboo dagaal ku jiro iska daawo hadda daawasheenu ku wada jiraa waryaana ma qurux badna geli maayaan idin idhi ilaa ay khilaafku uu golaha ka baxo waxa ay tidhaahdaan war maxaad ka daawanaysaan dhex gala idinkiyo madaxweynuga midkaan idinka rabaa kaa weeye dhaha kaa soo qora mudane gudoomiye waxaa idin soo gudbiyey muddo kordhintii madaxweynaha loo sameynayey iyagoo komishanka doorashooyinka qaranka ay sheegeen inaanay doorasho madaxtooyada ayna qaban karin bal iyada muddo kordhintii aan madaxweyne biixa u sameynayseen ka waran maxaan kaga warrabaa haddii komishankii yidhi la qaban kari maayo oo yidhaaheen muddadii u cayneed ku qaban kari mayno dee wixii hadhay waa kordhin intee wada kordhinaysa markaa waaryaha waxay la tahay taa idin kala tashan maayo golaha aad baad